Jimmy Carragher oo sheegay inuu Rice noqon doono saxiixii abid ugu weynaa ee Arsenal haddii ay ku guuleysato horyaalka Premier League sidee uga falceliyeen ciyaartoyda Arsenal qaladkii goolaya Aaron Ramsdale Liverpool mise Manchester City Harry Redknapp oo saadaaliyay kulanka adag ee dhexmaraya haddaba muxuu ku saadaaliyay muuqaalkan ay ku soo koobi doona ee soo dhawo balse marka hore waxa ka dalbanaa laakiin saarto sidoo kale si share kareyso haddii aad igala socoto bartii TikTok ku soo biro follow dhaho sidoo kale dirista xajariye ka badan taabo calaamada goob linki si uu dad badan u gaaro mahadsanid laacibka kooxda Arsenal Declan Rice waxa uu noqon karaa mid ka mid ah saxiixda ugu muhiimsan taariikhda Arsenal sida uu qabo Jimmy Carragher iyadoo kan Rice ay kula tartamayso Liverpool iyo Manchester City tartanka Premier League xilciyaareedkan kooxda Arsenal ayaa badisay 8 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League sanadkan iyagoo hoggaan ku qabtay horyaalka Premier League ciyaaraanka heerka caalamiga dalka England ayaa noqday xidig muhiim u ah Arsenal isagoo dhaliyay 6 gool ilaa haatan xilciyaareedkan Jimmy Carragher oo bogaadiyay saameynta 25 jirkan isagoo aaminsan lacagtii laga soo iibiyay in la xasuusan doonin haddii ay Arsenal ku guuleysato horyaalka Premier League haddii Arsenal ku guuleysato horyaalka Premier League waxa uu Rice noqon doonaa midka ugu fiican taariikhda Arsenal ayuu yiri Jimmy Carragher Rice waxa uu ahaa wixii ugu dambeeyay ee ka maqnaa Arsenal si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League ayuu halkiisii raaciyay laacibkii hore Liverpool Jimmy Carragher dhanka kale laacibka kooxda Arsenal Kai Havertz ayaa ka sheekeeyay sida ciyaartoyda Arsenal ay niyadda ugu dhiseen goolaya Aaron Ramsdale kadib qaladkii uu sameeyay kulankii Brentford kadib ciyaarta Kai Havertz oo la hadlay Sky Sport ayaa ka sheekeeyay sida qolka lebiska Arsenal ay u dhiirigeliyeen Ramsdale maadaama uu dhamaadkay qaybta hore ee ciyaarta uu sameeyay qalad weyn ma ahayn wax fiican gaar ahaan iyada uu goolku inaga dhashay dhamaadkay qaybta hore ayuu yiri Kai Havertz laakiin dhamaanteen waan isla hadalnay waana isdhiirigelinay sababtoo ah oo ma aan qalmin in goolkaasi naga dhasho laakiin qaladka waa qayb ka mid ah ciyaarta aniga qaladaad yaryar ayaan sameeyay sidaas daraadeed waxaan doonaynay inaan dhanka kale u rogno waan isla hadalnay waxaana soo bandhignay dunaag ayuu hadalkiisa sii raaciyay laacibka kooxda Arsenal Kai Havertz oo ka warbixiyay sida ciyaartoyda Arsenal u dhiirigeliyeen goolaya Aaron Ramsdale kadib qaladkii uu galay dhinaca kale kulanka ku xiisaha badan Premier League toddobaadkan ay dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester City ka oo ka dhici doona garoonka Anfield labada kooxood ayaa kulanka soo galaya iyagoo ku qasban inay guul ay ka gaaraan kulankan haddii ay doonayaan inay la wareegaan hoggaanka Premier League qabiilka kubadda cagta Ingiriiska Harry Redknapp ayaa saadaaliyay kulankan adag ee dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Manchester City kulan adag ee dhex mari doona labada kooxood kaasi oo ka tirsan horyaalka Premier League iyadoo labada kooxood ay ku tartami doonaan sidii ay weli lahaayeen 3 dhibcood ee kulanka Harry Redknapp oo saadaalin ka dhiibtay kulankan ayaa yiri isku dayga inaan kala doorto Liverpool iyo Manchester City mid ka badinaya waxa ay keenaysaa isla hal jawaab oo ah inaan doonaynin in aan mar kale saadaashayda bedelo marka aan eego qaab ciyaareedkooda waxa laga yaabaa in aan go'aansado in aan dhibcaha u qaybiyo Manchester City iyo Liverpool taasina waxay u fiicnaan doontaa Arsenal sababtoo ah iyaga ayaa hoggaan ku haya horyaalka Premier League ayuu hadalka sii raaciyay siday hadda u ciyaarayaan City iyo Liverpool way adagtahay inay dhibco lumiyaan haddii ay far sameeynin go'aano qaldan haddii aan saadaalin ka sameeyo kulankan waxaan ku saadaalinayaa inuu barbaro ku soo dhamaan doono ayuu hadalkiisa sii raaciyay qabiilka kubadda cagta Ingiriiska Harry Redknapp